muqdisho dagaal muddo guud ahaan dalka Soomaaliya ka socday kadib jabhadaha hubaysan ayaa 26 January 1991 qabsaday caasimadda waxa ay tirsanayeen gabood falaysa soo tarayay wixii dagaalkii Itoobiya Soomaalidu ay galeen 77 ilaa 78 wixii ka dambeeyay dawlad nuxurla oo danaynaysa dadka dantiisa meesha ayay ka baxday waa la boobayay dhulka la beeraha la boobayay xoolaha soo galaa la boobayay dadkii ka hor yimaada la dilayay marka waxa keentay arrimaha caynkaas oo lagu dhacmay oo dhowr iyo 10 sanadood soo socday ayaa keenay inay markii dambe hankashti dhacdo oo dhabarka ka jabto madaxweynihii muddada dheer dalka maamulayay General Maxamed Siyaad Barre ayay xukunka ka tuureen. It was almost like a sense of relief. waxay u ekeyd dareen neecawle kaligataliskii waa laga takhalusay cabsi ayaa jirta halis ayaa jirta laakiin sida arrimuhu u socdaan way soo hagaagayaan oo bog cusub ayaa u furmaya taariikhda Soomaaliya 30 sano oo xigtay waxa laga dhaxlay haaray iyo dhaawacyo aan tirmay burbur aan dayal ku dhismay maamulay taal daran iyo koox diimeedyo mayal adag dawladda dhexe Soomaaliya dalka isu haysay markay meesha ka baxday waxay ahayd waxa dhacay wax bani aadam xataa qof ku fakari kara inay waxa soo kala dhici karaan aadid ayay u yareeyay dawladnimadii wali curdunka ahayd ayaa aminka cirka ku laalantay nin walba ninkuu ka xoog badan yahay inuu sidoo doono inuu ola dhaqmo qabaa'ilo oo ayaga hubaysan oo meeshay doonaan ayaga waxay rabaan ka sameeyo inay soo baxeen in kale oo ayagana dhibaatadaasi iyagana ay ku waayaan wax kasta oo haday ciiso tahay haday sharaf tahay haday maartay hanti tahay wax kasta oo asagana la dhihi karo qofka marka ee muwaadinka xaq ayuu u lahaa inuu helo ayuu meesha ay ka baxday dariiq sokeeye maaha markii ugu horeysay Soomaalida oo taariikhda ayaa tilmaamaysa in siyaabo kala duwan ay Soomaalidu u dagaali jirtay laakiin hubka casriga ah waxa uu sababay in waqti kooban kumayaal qudha laga jaro guud ahaan Soomaaliya gaar ahaanna uu dhiig u qulqulo magaalada Muqdisho holaca iyo sunta baaruuda ayaa naafiyay da'yar aan waxba galabsan hooyooyin iyo waayeel jabhadihii riday dawladda ayaa iska hor yimi hardankoodii waxa ka dhashay masiibo bini'aadanimo boqolaal kun ayaa gaajo u dhimatay dunidu gurmad noociisa kii ugu horeeyay ayaa la soo diray ciidamo gaadh ka hayana waa lagu soo daray waxaa la siiyey waajibaad ah inay gargaarka dadka gaarsiiyaan wax kasta oo ay ku qaadato waa sida ku qornayd qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay guddiyo dhexdhexaadiye dhinacyada isdiriraya ayaa iyana Muqdisho soo gaaray si xabad u istaagto waxaan ku baaqay sida go'aanka guddiga fulintu qabo 5 jeer xabad joojin sababtoo ah nabad ayaanu doonaynaa marka ninka ay ishayeen oo ahaa madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dalka dhab uma qaadan hadalkiisa waxaa dhacay in odayaal ay isku shuqleen in la joojiyo dagaalka si loo gaaro muxuu ahaa nabad laakiin nasiib darro ninka kan taliyaha ah ama ninka kan madaxa adag leh ciidanka shisheeye ee dalka soo galay oo ka badnaa 35,000 oo askari iyo General Caydiid oo goobaha muhiimka ah ee Muqdisho haystay ayaa iskhilaafay qaramada midoobay waxa ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah General Caydiid 3 Oktoobar 1993 ciidanka sida gaarka ah loo tababaray ee Mareykanka ayaa howlgal military ka fuliyay bartamaha Muqdisho waxa howlgalka ka qayb qaatay 19 diyaaradood 12 gaari 160 askari oo xaruntooda uga soo baxay in howlgalka ay muddo 90 daqiiqo ah ku soo fuliyaan 50 daqiiqo markii uu howlgalku socday diyaaradii ugu horeysay ee Black Hawk ayaa la soo riday 20 daqiiqo kadibna diyaaradii labaad ayaa dhulka la soo dhigay ciidanka howlgalka galay waa la hareereeyay ciidan dheeraad ah ayaa loo diray si loo soo badbaadiyo wuxuu ahaa dagaal daba dheeraaday oo habeenkoo dhan socday ilaa 6 iyo barka subaxnimo boqolaal Soomaali ah iyo 18 Mareykan ah ayaa ku nafwaayay dhacdada oo bahdilaad ku noqotay Mareykanka waxa ay soo dadejisay in gabi ahaanba ay isaga baxaan dalka
gargaarkii bani aadanimana isna gaabis ayaa galay ururadii bulshaduna way iska baabeen markii hore dawladna ma ayan jirin markaa qabqablayaal dadkii gumaaday iyo runtii kuwa la leeyahay adduunyada u soo gurmadaan oo inta badan dantoodu ku maldahan tahay waxay leeyihiin waanu qabananaa dadka ayaa ka sayid caleeyay inay Soomaali wax ka qabtaan shirar dib u heshiisiin oo isxigxigay oo ka dhacay meelo kala duwan ayaa Soomaaliya loo qabtay inta badan ma miro dhalin ku dhawaad 10 sano kadib burburkii qaranka Carta ayaa lagu doortay madaxweyne ku meel gaar ah waxa dhidibada loo aasay qayb ka mid ah dawladnimada cusub ee Soomaaliya 2004 ayaa misana dib u heshiisiin kale nidaamka federaalka ee maanta jira la soo unkay dawladii la soo dhisay kooxadiimeedyo hubaysan iyo hogaamiye kooxeedyo ayaa ka hor yimi mar kale iyo dagaal gumac iyo baaruud laga yaabo kuwa iminka gaashaanka u haya inay dhasheen ama ay aad u yaraayeen 1990maadkii markii ciidamada shisheeye ay dalka sida weyn u soo galeen mar kale xabad joojin iyo wada hadalla ayaa fashilmay waxa ka mid ahaa midkii u dhaxeeyay midowga maxkamadaha iyo dawladda federaalka wada hadalladu waxay u guulaysan waayeen laba arrin darteed maxkamadaha waxa ku dhex jira al-shabaab oo aan ogoleyn wada hadal oo aan aaminsanayn in Soomaaliya xuduudeeda in lagu ekaado aan aaminsanayn dawladda Soomaaliyeed in la dhiso aan aaminsanayn kamid ahaa dabcan dawladdii markaas wada hadalka la galayeen Ethiopia oo hadafkeedu ah inuu Muqdisho timaado qoladaasna waxa daba taagnaa Ethiopia qoladaana waxa taagnaa shabaab san aaminsanahay marka saasa waxa ku fashilantay wada hadalkii Muqdisho waxay haddana magan u noqotay madaafiic iyo duqeymo shisheeye markan ciidamada Ethiopia oo taageeraya dawladda federaalka ee cusub ayaa hormuud ka ah bartilmaameedku waa midowga maxkamadaha laakiin khasaaraha inta badan waxa uu ku dhacayaa rayidka dagaalkan waxaa lagu tilmaamay kii ugu cuslaa muddo 15 sano kadib burburkii qaranka kumanyaal ayaa ku dhimatay kumanyaal way ku dhaawacmeen kumaan kunna mahadha ayuu ku reebay 22 sano oo marba daldarisa lagu dhaarinaya golaha sharci dejinta Soomaaliya 20 August 2012 waxa munaasabad taariikhi ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu dhaariyay xildhibaanada dawlad rasmi ah waxaase ammaanka ka soko wali rahman in laga gungaaro qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin dhamaystirka dastuurka hirgelinta nidaamka federaalka iyo dib u heshiisiin bahsan Soomaaliya dariiq sax ay markaa cagta saartay dalal badan oo maaragtay ama jaarka ha noqdaan ama dibadda kale ha noqdaanna waxaad moodaysay inay waxoogaa dadaalkuba ha iska jira inayan rumaysnayn Soomaaliya inay marun dooli doonto oo mar walba cautious laga ahaa yani laga walwalsanaa doonidaas inay rugma doonto inay hore u socon doonto guud ahaan xagga sare horu socod ayaa ka muuqda doorashooyin nabdoon ayaa dalka ka dhacaya 8 sano ee ugu dambeysay balse weli doonida siyaasadeed iyo xasiloonida dalku ma saldhigin madaxweynaha sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowr bilood kadib markii xilka loo doortay waxaa Muqdisho ka dhacay qarixii ugu dhimashada badnaa ebid in ka badan 600 oo qof ayaa goob ku naf waayay male inta kale ee uu baday dhaawac dhan kasta ah 30 sano waa 30 sano oo imtixaan adag la soo maray laba toddobaad ayaa ka harsan doorashada xigta ee dalka ilaa iyo iminkana lama cayimin xilliga ay dhici doonto saadaasha natiijada imtixaanka 30 sano ee soo socota malaha hubanti la'aan siyaasadeed ayaa sumad u noqon doonta maxamed xaraare BBC